halkani waa deegaanka Farmajabaaley oo qiyaastii 7 kiiloomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxa ku sugan dad iyo dunyo oo halkaas ku haaso xaalad biyo la'aaneed oo aad u halis ah waxana deegaankan sida ay sheegeen dadka deegaanku fursada biyaha la iibiya $10 waysan dadka qaarkood awoodin ayaa dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar isla markaana isku xilqaamay si iskooda kuwaas oo la magac baxay ururka wacyigelinta iyo horumarinta bulshada gobolka Hiiraan oo ka damqanaya dhibaatada biyo la'aan ee haysata dadka iyo dunyada ku nool tuulada Farmajabaaley ayaa waxay markii ugu horeysay ay gaarsiiyeen dadka iyo dunyada ku nool tuuladaasi gurmad biyo dhaamina taas oo ay si aad u soo dhaweeyeen dadka deegaanka Farmajabaaley oo ka mahad celiyay biyo dhaaminta loo sameeyay meeshan waxa ka jira anigoo afka tuuladu ku hadlayo oo gudoomiyaha Majabaaley Cali Aadan Cumar baaqi Anderson nimanka koobaad oo noogu soo jawaabay waa ururka wacyigelinta marka waa mahadsan yihiin khayr Allah siiyo waa tuuladu wax badan ay u baahan tahay waa u jeedin waxay ilaahaysi ilaala ka dhamaan la yiri dadka iyo dunyada meesha ku tabaaleysnaay maanta hadii biyana la soo gaarsiiyay khayr Allah siiyo waa ugu mahad celinaa in Allah intii maartay ay ugu qayb qaadatay iyo ayagaba biyaha fuustada meeshan waxaa la gadaa $10 aa la gadaa ninka heli kara 10 kaas oo gataa ninka heli karin ninkaas oo walaalnimo caag inta ugu qata marna waa soo waaya marna waa soo helaa dhalinyaradu biyaha noo keentay waa anaga Farmajabaaley waan ooneen waa rafaadsaneen boqolkiiba ku mahadsantihiin marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ha noo soo siyaadiyo inaad noo soo siyaadisiin ama baad ama biyo wax walba u baahannahay in anagana marka aan walaalihiin abaal intiga hayna waxa weeye biyaha aad baan ugu baahneen dad tabaaleysan oo hadii ilaahay idmo walaalahooda ay u soo gargaareen oo halkan joogay tuulada Majabaaley ku noolaa baad Allah qaba biyaha ayaa noogu daran wax walba biyaha noogu daran biyihina way noo soo bilaabeen walaalahayn haddana inay noo sii wadaan hadii ilaahay idmo wax alla wixii la heli karo ganacsiga ay noogu qayliyaan ayaga haddana jawaabkooda noo baarbaaraan gudoomiyaha ururka dhalinyarada wacyigelinta iyo horumarinta gobolka Hiiraan Cabdirashiid Faarax Cabdi iyo xubnaha ka tirsan ururkaas ayaa faahfaahin kooban waxay ka bixiyeen biyo dhaamintan ay u sameeyeen dadka tuulada Farmajabaaley iyo mid kamid ah kaamka barakac ku yaala xaafadda Hulowdaag ee magaalada Beledweyne kale maanta meesha ku sugan waa tuulada Majabaaley ee galbeedka magaalada Beledweyne adii qiyaas ahaan u jirta ilaa 7 kiiloomitir u jirta magaalada tuuladaas oo biyo la'aan ka jirto xayaat ishagana soo gaarsiiyeen baaq ay direen maamulka degmada gobolka Beledweyne degmada Beledweyne gudoomiyaha Food Cad iyo maamulka xigeenadeeda marka baaqas naga soo gaaray bulshada iyo maamulkii waxaana ururka wacyigelinta ahaan waxaana ururka ugu horeeyay ka soo jawaab baaqas ay jeedeen degmada sugnaa ishaga Majabaaley oo aan soo gaarsinay xayaat deeq 2 booyado biyo ah booyadu koowaad dawaatanaad labaad insha Allah way soo gaari doontaa insha Allah saacadaha soo socdo alxamdulillah ishaga maanta waa u jeedin xawaa xoolihii oo ma yihiin dadkii oo ma yihiin meelahan ceel ka muuqdo wiilka ma dhawo marka waxa ka muuqda rafaad badan iyo biyo la'aan badan tiro badan marka ilaah maanta iska le intii soo sadaqaysatay intii soo dhiibatay intii xoog iyo ayaxanaba ku ugu qayb qaadatay waxaan maanta halkaan u imaanay qilidaan maalmihii la soo dhaafay nooga imaanaysay tuulada taasoo ah biyo la'aan meesha ka jirta oo xoolihii iyo dadkiiba saameysay xaaladda waxay maraysaa meeshii ugu adkeeday waxaanu arkaynaa dad la liito oon daraadiis dunyadii waxaa la sheegayaa inaysan isbuuc ama 3 isbuuc ugu dambeysay biyo la siiyo gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibraahim Food Cad iyo ku xigeenkiisa dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Beledweyne Maxamed Cali Maxamuud oo goobta dhalinyaradan gurmadka biyo dhaaminta ugu sameeyeen dadka tuulada Farmajabaaley ayaa ka hadlay waxayna u mahad celiyeen dhalinyaradan si iskooda isku xilqaamay isla markaana dadka u sameeyay gurmadkan biyo dhaaminta waxaan u mahad celinaynaa ururka wacyigelinta gobolka Hiiraan ee meeshan deeq biyo ku sadaqaystay ummadan oo dad leh duunyo leh nafleeyo dhan ku sadaqaystay aadaan ugu mahad celinaynaa maanta maalin aan ka dheereen kormeeran ku imaadnay insha Allah ilaahay idinkiis waa ka soo jawaabeen baaqi aan jeedinay meel dhaweeto oo mataqaanaa biyo dhaaminta ahay oo dhibaatadii aan ka sheegnay halkaan waxa si degdeg ugu soo jawaabay ururka wacyigelinta horumarinta ee Hiiraan waa ku mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sida ay ugu soo jawaabeen oo wanaagsan oo taxadir kale waa ku mahadsan yihiin Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed Beledweyne